run ahaantii waxaan shaki ku jirin in qof walbo inaga naga mid ah inta uu nool yahay in uu wax sugayo. Haddii ay noqon lahayd in aad sugto qof safar ka soo noqonaya, sugitaanka riyo aad doonayso inay kuu dhawowdo. Dhab ahaantii haddii aad wax yar fikirto, waxaad ogaanaysaa in nolosheena gebi ahaan ay sii idlaanayso inagoo wax sugayno. Haddii ay noqon lahayd inaad qalin jibiso, in aad ku biirto jaamacad, in aad hesho fursad shaqo iyo wixii la mid ah, dadka ugu nasiibka badan waa kuwa aysan waqti dheer ku qaadan in ay ka dhaweeyaan ujeedooyinka noloshooda, balse kuwa ugu nasiibka xun waa kuwa dunida ka taga iyagoo sugaya in ay gaaraan ujeedooyinkooda. Frank Hayes waa mid ka mid ah dadka uu sugitaankooda u dheeraaday, riyadiisuna waxay ahayd in uu ku guuleysto tartanka fardaha iyo in uu gaaro magac iyo sharaf. Laakiin waxay ahayd riyo ay adag tahay in la gaaro, sababtoo ah wuxuu ahaa mid mar waliba ku fashilma tartankaasi, weligiisana kumuu guuleysan. Lamana ogeen halka laga heesto ninkaasi, ma isagaa nasiib darnaa mise fardihii uu tartanka ku gali jiray. Si walbaba ha ahaatee, wuxuu ahaa qof mar waliba fashilmo, laakiin ma uusan quusan. Sanadkii 1923 wuxuu ka qayb galay tartanka fardaha oo xilligaasi lagu qabanayay magaalada New York. Da'diisuna xilligaasi waxay ahayd 35 sano jir. Jirkiisuna wuxuu ka dhimay miisaan aad u ballaaran si uu ugu guuleysto tartankaasi. Faraska uu ku tartamayay waxaa la oran jiray Qiblatul Halwa. Faraskaasina waxaa lahaa habeenay aad u hanti badan, balse sheekada qosolka badan ee ku jirta qisada Frank waxay tahay isagoo ku guda jira tartankiisa ayaa waxaa ku soo booday xanuun dhinaca wadnaha ah, waana uu geeriyooday. Dhab ahaantii wuxuu geeriyooday isagoo dul saaran dhabarka faraskiisa, iyadoo ku socota xawaare aad u sareeya si ay u gudubto fardaha kale ee la tartamayay. Waxaa la yaab mudan in Franka uusan ka dhicin dhabarka faraskiisa, mana aysan jirin qof ka warhayay geeridiisa ilaa ay ugu tagto haweeneydii faraska iska lahayd si ay ugu hambalyeeso guushiisii. Ugu dambeyn, Franku waa uu guuleystay, riyadiisuna waa uu ka dhaweeyay, wuxuuna helay magacii uu muddo dheer ku riyoon jiray. Laakiin sheekada meesha taala ayaa waxay tahay looma aqoonsan mid ka mid ah dadka ugu caansan ee fardaha ku tartama, balse wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee ku guuleysta tartanka fardaha isagoo meed ah. Frank waxaa la aasay isagoo xiran hadiyaddii uu tartanka kaga soo guuleystay, laakiin faraskii uu ku tartamayay ma aysan jirin qof ku dhiirtay in uu tartanka ugula qayb galo. Waxaan jeclaan lahaa in aan kuu sheego in meydka Frank uusan ahayn midka keliya ee ka dhaweeyay magac iyo guul kadib geeridiisa. Taariikhda Carabta waxaa laga helaa wiil dhalinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray Rabiicata. Wuxuu ka mid ahaa qabiil la oran jiray Bani Furas, waxaana la sheegaa inay ka mid ahaayeen qabaa'ilada ugu geesisan ee Carabta. Halkii nin oo iyaga ka mid ah wuxuu u dhigmi jiray 10 qofood oo dadka kale ah. Islaamka kadibna waxay u soo haajireen Masar, halkaasi ayayna degeen. Riwaayadaha qaar waxay sheegaan in Rabiicata uu ahaa mid waardiyeeya haweenka tolkiisa xilliga ay safrayaan. Waxaa dhacday in maalin iyagoo ka soo laabanayay mid ka mid ah safaradoodii una dhow guryaha tolkooda in si kadis ah ay kula kulmeen rag ka mid ah qabiil lagu magacaabi jiray reer Bani Saliim. Labada qabiilna waxaa ka dhaxeeyay cadaawad soo jireen ah. Raggii waxay isku dayeen in ay xoogaan dumarkii uu ilaalinayay Rabiicata, laakiin si geesinimo ay ku dheehan tahay ayuu u difaacay, wuxuuna ka dilay raggii qayb ka mid ah. Dumarkiina iyagoo nabad qaba
ayay gaareen reerihii tolkooda ahaa. Sannado badan kadib waxaa dhacday in Rabiicata uu la kulmo arrimo noocaan oo kale, laakiin mar waliba wuxuu muujinayay geesinimo xad dhaaf ah si uu u difaaco haweenka. Maalin ayaa waxaa dhacday in isagoo raggii la dirirayo dhaawac soo gaaro, weliba dhaawac halis ah. Dumarkii ayuu wuxuu u sheegay in ay socodkoodii iska sii wataan, isagana uu sii saarnaa doono faraskiisa, warankiisana uu iska cugsan doono si uu cadowga kaga dhiciyo, maadaama aysan ku soo dhiiran karin inta uu isaga waddada u taagan yahay. Sidaas daraaddeeda dumarkii waa ay iska dhaqaaqeen ilaa ay ka gaaraan guryahooda, balse Rabiicata waa uu geeriyooday isagoo cugsan warankiisa. Reer Banu Saliimna indhaha ayay ka fiirinayeen iyagoo sugaya in ay weeraraan, kamana aysan warhayn in uu nool yahay iyo in kale. Si ay arrinkaasi u xaqiijiyaan, mid ka mid ah askartoodii ayaa leeb ku tuuray faraskii uu saarnaa Rabiicata. Faraskii ayaa isla markiibaba booday, Rabiicatana waa uu ka soo dhacay. Waxayna ogaadeen in uu Rabiicata meed yahay, laakiin fursad weyn ayay iska lumiyeen. Iyagoo shalaynaya ayay dib u laabteen. Sidaas daraaddeeda Rabiicata wuxuu caan kaga noqday Carabta dhexdeeda in uu ahaa qofka keliya ee ilaaliyo dumarka, isagoo nool iyo isagoo meed ahba. Qabrigiisana wuxuu ahaa mid caan ah oo ay dadka dhan booqdaan. Muuqaalkeena maanta halkan ayuu ku egyahay. Waxaa inoo ballan ah muuqaalka xigo, adigoo nabad qaba iyo anoo caafimaad qaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.